habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal awood u leh inuu gaaro Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa weydiistay Shiinaha in ay arrinta soo farageliyaan qaxootiga ku sugan dalka Itoobiya iyo kumanaan dhalinyaro ah ayaa loo bilaabay barnaamij shaqo abuurisa si looga joojiyo safarka halista ah ee tahriibka waxaanu la kulmi doonaa dhalinyarada cuslaatay oo hadafkoodu yahay in ay iscaateeyaan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay si guula u dirtay gantaal qaaradaha isaga kala gudbi kara haddii ay dhab tahay waxay tani noqonaysaa tallaabo muhiim u ah barnaamijkeeda hubka waxaana gobolka Alexa ee Mareykanka uu noqonayaa meel uu gaari karo tanina waxay cadaadiska ku sii kordhinaysaa madaxweyne Trump oo horey uu sheegay in Pyongyang aysan samaysan karin gantaal gaari kara Mareykanka Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya dabaaldegga maalinta xorriyadda Mareykanka ayay Kuuriyada Waqooyina samaysay dabaaldeg dabrid ah tani waa tijaabadii sayruuq ee u dambeysay ee uu sameeyo maamulkaasi qarsoodiga taasina waxay muujinaysaa horumarka muuqda ee awooddooda wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay in waddanku uu hadda leeyahay awoodda sawaariikhda meelaha fog gaara faahfaahinta ayaa muujinaysa in sayruuqa uu kor u kacay ilaa iyo 2800 kilomitir isagoo duulay 933 kilomitir ka hor inta uusan gaarin bartilmaameedkiisa oo ahayd meel ka baxsan badda Jabaan khubarada ayaa sheegaya haddii lagu gani lahaa jid toos ah in uu joog hoose ku duuli lahaa taasi oo ah inuu gaari karo 67,000 kilomitir waxayna ka dhigaysaa inuu Alaska dhan duqayn karo madaxweyne Trump oo hore u sheegay inaan Pyongyang loo ogolaan in ay samaysato sawaariikhda gaari karta dalkiisa ayaa Shiinaha weydiisay inay soo afjaraan dhaqanka aan la aqbali karin We certainly would like to see de-escalation. طبعاً waxaanu rabnaa in xaaladda la dejiyo oo arrinka la qaboojiyo si aanu faraha uga bixin waayo waynu ognahay haddii arrinkani faraha ka baxo waxaa ka imanaysa cawaaqib xun oo dhibaatadeeda aan cidina jeclaysan doonin kulligeenna waxa inoo dana in meel dhexe la isugu yimaado oo arrinka dhulka la dhigo sayruuq kasta oo gaari kara wixii ka badan 5,500 waxaa loo arkaa sawaariikhda qaaradaha isaga gudba waxaase jira shaki laga qabo in Kuuriyada Waqooyi ay si buuxda u gaartay farsamada la doonayo si loo duqeeyo meel cayiman balse hal wax ayaa cad sanado badan oo cunaqabatayn dhaqaale iyo hanjabaado inaysan ka joojin Pyongyang doonisteeda bambooyinka iyo sawaariikhda culus faafaahinteeda oo ku saabsan xiisadda Kuuriyada Waqooyi iyo warar kale waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo ka geli kara mobilkaaga Itoobiya waxay bilowday dhismaha laba warshadood oo waaweyn oo shaqo abuuris u noqon kara kumanaan qaxooti iyo dhalinyaro shaqo la'aan mas'uuliyiintu waxay aaminsan yihiin in shaqo abuurka ay dhalinyarada ka celinayso tahriibka bishii September Britain bangiga adduunka iyo midowga Yurub ayaa waxay ballan qaadeen $1 milyan oo mashruucan lagu meelmariyo laakiin saameyn ma yeelan karaa barnaamijkan Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya Salaama iyo Abiro waxay nasiib u heleen inay noolaadaan 2 maalmood ayay xiradan u soo lugaynayeen biyo iyo cunto la'aan waxayna ka soo qaxeen Eritrea waxay ka soo carareen in militariga si qasab ah loogu daro dadkana ma doonayaan in muuqaalkooda la arko sababta aan dalkeenna uga soo qaxnay waxay tahay dawladda Eritrea oo nagu qasabtay inaan ciidanka ku biirno oo dalku inoo baahan yahay waxaan ku soo lugaynay duurka si aysan inoo arag ciidamada Eritrea waan soo baxsanay isbuucyadan ugu dambeeyay boqolaal qof oo ka soo qaxay Eritrea ayaa soo gaarayay xero ku taalla waqooyiga Itoobiya maamulka waxay sheegayaan in tirada ay xad dhaaf tahay deeq-bixiyaasha iyo hay'adaha qaxootiga ayaa isku dayaya inay wax ka beddelaan arrintan ayaga oo shaqo u abuuraya qaxootiga kaalmana ka helaya midowga Yurub bangiga adduunka iyo Britain waxay xitaa muhiim u tahay dalka Itoobiya oo qaxootiga badankooda ay ku fakirayaan in ay sii socdaan maadaama aysan mustaqbal wanaagsan ka arkayn halkan aysanna garanayn wax ay sameeyaan waxay sheegayaan in aysan shaqo haysan shaqadanna waxay dhalinaysaa in la qalabeeyo waxaanan hubinaynaa in tababarka aysan sheekadu ku dhammaan
kadib marka wax la baro waa inay shaqo helaan. laakiin tani ma ku filan tahay dhaqdhaqaaqa qaxootiga doonaya inay aadaan Yurub? Tekle Maryam oo 2 jeer isku dayay inuu Yurub aado kuna guuldaraystay waxa uu ka sheekeynayaa nooca caawinta ay u baahan yihiin. waxaan u sheegay inay iska joogaan oo ay wax bartaan oo ay helaan xirfad kadibna shaqo way heli doonaan. tababarka noocan ah ee shaqada alwaaxda waxaa suuragal ah inuu u horseedo inay wax iska beddelaan qaabkan u fikirno. ayadoo qaxooti badan oo halkan ku sugan ay ku faraxsan yihiin in shaqo ay helaan, haddana waxaa jiro kuwa badan oo aan ku qancin oo doonaya inay naftooda halis geliyaan si ay u gaaraan Yurub ugana helaan nolol wanaagsan. bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, 3 qof oo kale oo rayid iyo ciidan isugu jirana way ku dhaawacmeen kadib markii madaafiic hoobiyaal ay ku dhaceen xaafado u dhow xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, sida ay BBC-da u sheegeen dad goobjooga. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka hoobiyaashaasi maanta lagu qaaday magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay duqeeyeen gudaha xarunta madaxtooyada. xulafada uu Maraykanku hogaaminaya ee Suuriya ayaa sheegay in mucaaradka la dagaalamaya kooxda la baxday dowladda Islaamiga ay jabiyeen darbiga ku wareegsan magaalada duqa ah ee Raqqa. 10 kun oo dadka deegaanka ah ayaa ku go'doonsan magaaladaasi caasimadda oo ah kooxda IS. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 170 rayid lagu dilay magaalada dagaalka ka dhacay bishii hore. Narendra Modi ayaa noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee India ee booqda Israa'iil, isagoo maanta booqasho 3 maalmood ay uga bilaabatay ayaa iskaashiga xagga gaashaandhigga waxa uu noqonayaa arrinta ugu weyn ee wadahadalka dhex mari doona Mr. Modi iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. booqashada ayaa dadka qaar u arkaan isbeddel muhiim ah India halkii ay ka joogtay Israa'iil. iskaankii caalamka ugu casriyeysnaa ee tafaasiil ka bixinaya maskaxda ayaa waxaa soo saaray saynisyahanada jaamacadda Cardiff ee dalkan UK. dhakhaatiirta ayaa rajaynaya in tani ay kordhin doonto fahamkooda cudurro badan oo dareemayaasha kuwaasi oo loo isticmaali jiray qalliin. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka warramaya. maskaxda bani aadamka fikirkeeda, xusuusteeda iyo dareenkeeduba waa halkan. tafaasiil aan hore loo arag ayay muuqaaladani waxay ku tusayaan walxaha caddaanka ah iyo qaybaha loogu yeedho axonis oo ah waayirada isku xidha maskaxda oo qaada balaayiin amar oo electric ah. iskaankan ayaa waxaa lagu sameeyey Kubrick oo ah xarunta cilmi baadhista maskaxda ee jaamacadda Cardiff. kooxdani reer Cardiff ayaa la shaqeeyey sharikadda Siemens ee Jarmalka iyo Maraykanka si loo sameeyo muuqaal 3D ah. tani waxay ahayd horumarkii ugu weynaa ee cilmi baariseed intii aan hawshan MRI-ga waday 22 sane la soo dhaafay. waxay ka dhigan tahay iyadoo lagu dhiibay diiradda hawada sare ee Hubble telescope adigoo markii hore oo kiyaalo un haystay. taasi oo macnaheedu yahay waxaynu eegi karnaa oo arki karnaa meelo aan hore u gaarin oo maskaxda ah. John Ronalds waxay si mutadawacnimo ula shaqaysaa cilmi baarayaasha Cardiff. waxay qabtaa cudurka dhaqdhaqaaqa xubnaha kaasi oo dareemayaasha dhaawaca. kani waa iskaan caadi ah oo ina tusaya boog oo ah meel dhaawac gaadhay oo shiyan maskaxdeeda ah. laakiin iskaankani cusub waxa uu ina tusayaa tafaasiil intaasi ka badan oo ay ka mid tahay cufka waayirada isku xidha maskaxda, taas oo saynisyahanadu ay midabeeyeen. meelaha casaanka iyo cagaarka ah waxay muujinayaan meelo cufku yar yahay oo muujinaya meel wax qabta oo dhalin karta dhibaatada jeen ee xagga dhaqdhaqaaqa iyo daalka badan ee hayaba. calaamadaha lagu garto qaarkood in yar oo ka mid ah waxaa lagu arki karaa iskaanka caadiga ah. farsamadan cusub waxay ogolaanaysaa markii ugu horeysa in tafasiil dheeraad ah laga helo qayb kasta oo maskaxda ka mid ah, taasi oo aynu faham ka helayno bal calaamadaha xanuunka MS iyo sida xaalku yahay. cilmi baadhayaasha ayaa u isticmaalaya mashruucani inay wax ka ogaadaan cudurrada kale ee maskaxda sida dhimirka, asaasaqa iyo suuxdinta. xitaa waxaa laga yaabaa in lagu eegi karo kansarka ku dhaca maskaxda iyo tuumarada iyadoo la taabanba maskaxda. markana wararka ciyaaraha, ninka horyaalka tenniska hore u qaaday ee Novak Djokovic ayaa u baahday 40 daqiiqo oo kaliya si uu ugu soo gaaro wareegga labaad ee Wimbledon kadib markii Martin Klizan uu ka fadhiistay gacantii labaad.
roger federer ayaa isna dadaal xoog leh sameeyey cayaartiisii ugu horeysay ee ay isaga hor yimaadeen alexandra dolgopolov ciyaaryahanka Ukraine u dhashay ayaa isaga baxa ciyaarta gacantii labaad taasi oo Federer u soo gudbisay wareegga labaad. weli wararka ciyaaraynu ku jirnaaye John Terry ayaa sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in uu maamulo naadigiisii hore ee Chelsea kadib markii ciyaaraha uu ka fariisto. Terry ayaa ku biiray kooxda Aston Villa oo uu shalay u saxiixay 1 sano oo heshiisa kadib markii uu ka tagay kooxda horyaalka qaaday ee Chelsea dhamaadkii bishii hore. tababaraha naadiga Manchester United Jose Mourinho ayaa ku qanacsanayn in xagaagan aan la soo iibin ciyaartoydii uu u baahnaa kadib markii Man United ay ka badisay Ajax horyaalka Europa. Mourinho waxa uu sheegay inuu gudoomiye ku-xigeenka kooxda uu siiyey liis ay ku qoran yihiin ciyaartoyda uu rabo. ilaa hadda waxaa la soo gaday 22 jirka u ciyaari jiray Benfica Victor Lindelof oo ay ku soo gateen 40 milyan oo dollar. ma doonaysaa inaad dhowr kiilo iska rido? haddaba waxaa jira mashruuc cusub oo arrintan gacan kaa siinaya kaasi oo mataaneeyay nidaamkii soo jireenka ahaa ee kubadda cagta iyo hamiga dadka doonaya inay iscaateeyaan. ilaa iyo hadda 80 nin ayaa iska riday miisaan u dhigma 500 oo kilogram muddo 12 isbuuc gudahooda. sirta ku jirta waxay tahay inay isla shaqaynayaan sida ay sheegayaan dhalinyarada cuslaatay. waa markii igu horreysay waxaana iga dhacay 22 kiilo. nolosha waan ku raaxaysanayaa, waxaan dareemayaa in aan guul gaadhay. iisug waa ku kaas. jirkayga ayuu dhisay, waan caatoobay, balse weli kubadda kuma fiicni. ma iska baashaalbaa mise ronaaldaha xiga? taasi muhiimad kama aha halkan. waxa la doonaya ayaa ah in culayska la dhimo iyo sidoo kale in ciyaarta goolal lagu dhaliyo si kooxuhu ay u helaan goolal dheeraad ah oo lagu siinayo miisaanka ay wadajirka u dhimeen. waxaan run ahaantii dhab ahaantii ku rafaaday inaan dhimo miisaankayga sannado badan. waxaan ku biiray xarumaha ganacsiga ee miisaan dhimista. waxaa cad badi dadka goobaha si aada inay yihiin haween, waxayna i dareensiisay inay taasi ahayn hawshaydii. waxaa jiray hadallo badan oo ahaa in laysku caateeyo bikiiniga. marka sida dhabta ah waxay ahayd uun helitaanka wax ku habboon ragga, wax uun ka caawiya inay u shaqayso dhimista cayilka. middaas way shaqaysay. markii ugu horraysay ee aan bilownay waxaan lahayn qol aad u yar oo raggu isku cabbiraan, taasi oo markii dambe kooxda oo dhan ay wada yimaadeen iyagoo qolka buuxiyey. maxaa yeelay way istaageerayeen iyagoo is ammaanayay, waxayna doonayeen in qof kasta uu si wanaagsan sameeyo. tan iyo bishii Janaayo, Ross waxa ka dhacay 28.5 kiilo. waxa uuna ogaaday in aanay jirin qaab ragga asaga oo kala ah ay ku heli karaan inay gaaraan waxa ay rabaan oo ah in ay culayska iska ridaan. waxaad fiirinaysaa caafimaadka raggaada. waxaan u baahannahay in aan awood u yeelanno inaan culays iska ridno si aan dhib lahayn. haddii ay tahay koox wiilal ah oo ciyaar ahaan u samaynayana taasi aad iyo aad bay u fiican tahay. ayada oo kiilooyinka ka dhacaya qofka ay caddayn u tahay in wax kasta oo kuu shaqeeya ay tahay midda ugu wanaagsan ee aad kula dagaalami karta cayilka. ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tegaynaa sawiradan la yaabka leh ee kafeega laga sameeyey. Lee Kang-ping oo ah South Korean ka shaqeeya maqaayadan kafeega ayaa sameynayay farshaxankan creamka ee kafeega ilaa markii uu jiray 21 sano. sawirada uu sameeyay xagga farshaxanka waxaa ka mid ah kii Edvard Munch iyo Van Gogh oo cabista aad u wanaagsan. wararkan kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeena bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aynu ka shaqaynayno waxaad kala socon kartaa BBC Somali Facebook. ha hilmaamin waxaad anigii asxaabtaba nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka @bbc somali ee Twitterka. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaanu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay habeen wanaagsan.